waa kirishbooy, waa mid kala yaso. Waxa uu u adeegaa hooyadiis iyo ilmaha ka yar, balse hadda saas ma aha, waa nin caan ah. Daawo sheekadan oo dhammaystiran dhaxtaalka kadib. Saalax Yuusuf waa wiil Suudaanees ah oo ku dhashay gobolka Manaaqil ee bariga Suudaan. Waa curadka aabihiis iyo hooyadiis. Aabihiis waxa uu dhintay isagoo dhiganaya dugsiga sare. Danta iyo duruufta nolosha ayaa ku qasabtay inuu isaga haro waxbarashada si uu ugu xamaalo hooyadiis iyo wiilasha walaalihiis ee ka yaryar oo agoonta ah. Waxa uu bilaabay inuu tuuladaasi ku wareejiyo lowskii xanjada, laakiin carruurtii ayaa soo koray, waxayna soo gaareen dugsi sare, wayna ku filnaan weysay wixii yaraa ee uu magaaladaasi ka shaqayn jiray. Waxa uu go'aansaday inuu u shaqo doonto magaalada caasimadda waddanka ee Khartoum. Wax shaqo ah markuu ka waayay aan ka ahayn inuu noqdo kirishbooyga gaari bas ah oo dadweynaha gura ama loo yaqaano BL Khartoum dhexdeeda. Gaariga wadada oo maro waxa ku taala jaamacadda ugu weyn waddanka Suudaan, ugu ardayda badan, uguna magac dheer, uguna taariikhda fog waa jaamacadda Khartoum. Saalax Yuusuf ama Saalax Kirishbooy waa sida saaxiibadiisa ay u yaqaanaan. Wuxuu subax kasta daawadaa ardayda, shaqaalaha iyo macallimiinta baskiisa ka degaya oo jaamacadda galaya. Muuqaalkaasi ayaa ku reebay dareen gooni ah, waxaana bilaabay inuu ku fakaro sidii mar uu uga mid noqon lahaa dadka galaya jaamacadda Khartoum. Taas waxay ku qasabtay Saalax inuu dib ugu laabto. Taas waxay ku qasabtay Saalax inuu go'aan ku qaato inuu mar kale dib ugu noqdo dugsigii sare oo waa hore duruufta ka reebtay. Wuxuuna bilaabay inuu subaxiina dugsiga sare dhigto, gelinka dambena kirishbooynimadiisa ku shaqaysto. Markii laga qaaday imtixaanka dugsiga sare ugu dambeeya, waxa uu noqday Saalax Kirishbooy ardayga ugu sareeya ee iskoolka uu dhiganayay oo kaga mid noqday ardayda darajooyinka sare ka keenay waddanka. Wuxuuna gaaray hamigiisa ahaa bal inuu mar uun galo jaamacadda Khartoum. Waxa uu galay kulliyadda artiska qaybta juqraafiga. 4 sano waxa uu dhamaystay jaamacadda isagoo ka shaqaynaya kirishbooynimadiisii uu reerka ka biili jiray, naftiisana ka dabari jiray. Waxa uu noqday ardayga helay darajada ugu sareysa ee ardayda ka keento maadada juqraafiga. Wuxuuna mutaystay martabatu sharaf ee la siiyo ardayda loo qaadanaya shaqaale inay ka shaqeeyaan jaamacadda. Wuxuu noqday caawiye macallin isla jaamacadda Khartoum, isla markaana wuxuu sii watay darajada labaad ee jaamacadda isla takhasuska juqraafiga. Saalax Kirishbooy maanta waa macallinka jaamacadda uu ardayda ku hordejin jiray isagoo kirishbooy ah maadada juqraafiga. Wuxuuna u sharaxan yahay inuu ka mid noqdo culimada juqraafiga waddanka Suudaan. Waxaa wax ka qoray dhammaan joornaalada waddanka Suudaan. Waxaa wareysi la yeeshay badanaaba TV-yada waddanka. Wuxuuna noqday nin caan ka ah waddankiisa dhexdiisa iyo cid kastana ay maqashay warkiisa. Wuxuuna guushiisa u tiiriyay himadiisa sare iyo adkaysigiisa iyo weliba ducada hooyadiis. Saalax waa tusaale aad u muuqda oo ina tusinaya waddo fiican oo qof kasta u furan oo ku gaari karo maqaam sare.